الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحلقاتك أما مجالستني كصاب سنيد السلسلة القصص صحيح القصص النبوية. مجالستي أما السلسلات كي نوسعونها هي سلسلة دي كوي طبنادوي وكصاب سنيد صحيح القصص النبوية. أنت قصة أن مجلس كان وحكو سامسية هي قصة عجيبة. فالنبي عليه الصلاة والسلام أي أمدي سؤسو النقلية والصحابة رسول الله وأقوى الرمي. قصة وحكو سامسنتها هي مجموعة أما ضد أمد كميدة النبي محمد آخر مركي لتغو أما أمد كميدة أي آخر مركي لتغو بيضاد لا إيمان هيان وإلهي هور إيمان هيان وإليه الرسوش اللي صادري إيو خيرك اللي صادري أنه وأنك قدنا وإحنا سوء قاعدين ملك dadka waxa lagu sameeynayo ayuu nabiga kaleey salaatu wasalaam uu ka waramay qisadan saxaabatu rasuulillaah rag fara badan baa wariyay. abu hurayra ayaa kamida raga maartay warinaya xadiidka. waxa kamida nin liyaado maartay al-aswad ibn suraa'i baa kamida iyo qeyrkood. xadiidkan labada saxaabi ay warinaya abu hurayra iyo أسود من سراع بالسين الآخرية بضم السين سراع اللي هذا سراع. وحصوص على الإمام أحمد كتاب كيس مسند كا سيدو كلا بزار كتاب كيس مسند كا ابن أبي عاصم سيدو كلا كتاب كيس السنة. الإمام البيهقي كتاب كيس في الاعتقاد هي غير كتب ويصوص على حديث كاس الإمام البيهقي وحكم السند كيس إنه يا سنة صحيح. الشيخ الباني رحمة الله عليه أسنى سلسلة صحيحة وكصحيحين هي حديث كان معناه ونصر رقم قصة وط. أي النبي وحيد عليه الصلاة والسلام أفر ومضاها كمذا أي قيامة مركي لتغى يحتجون حجج يضاد بإلا إيمان هيان أفر قف أما أفر صنف أفر تاقف وحاكمه النبي عليه الصلاة والسلام وقف كدقهلا وقف دقهلا ونهلين وحنا مقلين قف كاللبادنا وقف أنا عقلي لهين ومارتي مجنونة قفك صدحانا ويل مارتي عقلي وكتغي او دانيمو اسكو درمداي او waxba kala garaneen. qofka afraadna asxaabul fatra yani laba nabi oo isku xigay dhaxdooda maartay qofka dhinta oo risaaladii horena maartay laga maartay hore iyo tadambe dhaxdooda dhintay ayagoona rasuul loo soo diray midna jira asxaabul fatra liyada afarta qolo ayaa qiyaamada maartay xujooyin iyo waxay la imanayaan dood bay cinda rabbil caalamiin la imanaya ka dhagahala wuxuu leeyahay rabbiyow islaamkii baa yimid oo nabi maxamed baa la soo diray iyo islaamkii wama asma'u shay'an anoona waxba maqlaynin waxana maartay ku hadli karin waxana fahmaynin baa islaamkii yimid kii kale maartay wallahi majnuunkaasna wuxuu leeyahay rabbiyow islaamkii baa yimid wama a'qalu shay'an أنا وحبا أنا فهمينين كهرنا وحولا أنا وحبا مقلين دقولك وحولا أنا وحبا مقلين با إسلام كيمد كل بعضنا وحولا دقن كأنا وحبا جرنينين با إسلام كيمد والسبيانتي يعرورت أي دقحيها يدقضا يقول طور هيان كيس دحاضا ويل كأنا وحولا هي ربي وإسلام كبا يمد وما أعقل شيئا أنا وحبا فهمينين أبا إسلام إسلام كيمد أصحاب الفترة دي الله بضا رسول الله هذا قفك انتهى أصلا رسالة سوء قاعدين أصلا وحوله رسول الله وحي من حق هذا أو الرسول أو يقصوا قاعدين ما تشرتوا سداس له أفر تاقلوا أي قيامة الحجة كالله إيمانيس قف نقالا ومركو إسلام كو إيمانه هي وحبا مقلين يمد والا ومركو إسلام كو يمد أنا مارتي وحبا قرنين يمد واييلا وحبا قرنين مركو إسلام كو يمد iyo mid islaamku intuu seemaan ka hor dhintayba afartaas in fiiba iman hayaan. masaladu waa masalad dood badan ka jirto. nabiga kaleey salaatu wasalaam marka wuxuu noo sheegay markay intaas u yimaadaan ilaahay baa ballan ka qaadayay muwaafiq inay adeecayaan waamirtu siiyo inay qaadan hayaan. ilaahay baa marka wuxuu u dirayaa rasuul buu u diri markaas waxa la leeyahay naar tangala naar buu ilaahay u soo saari
gala laleeyahay naartan gala nabigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam ninka awaamirtaa qaatoo naartaa gala waxay u noqonaysaa naartii calayhi bardan wa salaaman u noqonaysaa qabow iyo nabadgelyo noqonaysaa ninka gala ama ninkaana gelinoo diida suxiba ilayha asaga maarta iyada xaggeeda loo jiido lagu ridayaa ikhwat alislaam waliimaan qisadan waxay noo xambaarsan tahay macluumaad ana caqliga lagu keeni karin oo aad iyo aad marka u ballaaran waa qiso dood badan ay ka jirto dadka noocaas ama asxaabul fatrada labada rasuul fatrada u dhaxaysa dhinteen ayagoo risaaladu soo gaadhin iyo dadka ayagoo waalan ay maartay islaamku yimid iyo dadka dhagahala iyo dadka maaragtay da iyo waayeelnimo heerka gaadhay oo marka ayagoo wax kala garanay islaamku yimid afarta qolo kalena waxay ku daraan carruurta mushrikiintana way ku daraan idan dadka noocaas xagee la geeyna maxay noqonaysaa xukunkoodu culimmadu aad bay ooga doodaan laakiin qowlka ugu xoog badan ee ugu raajaxsan ee nusuustu ay caddaynayso oo culimo fara badan ay soo dhoweeyeen rag badan baa ka hadlay waxaa ka mid a raggii ka hadlay alimaam albayhaqi baa ka mida waxaa ka mid a alimaam ibnu cabdilbar baa ka mida waxaa ka mida ibnu qayim baa ka mida ibnu taymiya ka mida imaamu nawowi baa ka mida rag fara badan oo culimmada siyaalo kala duwan bay ooga hadleen oo intaasoo qowl baa ku jirta laakiin waxa inagana khuseeya waxaa weeyaan qisadan iyo macluumaadkeeda inay maaragtay dadkaas noocyahaas oo kala duwan oo nin waalan oo markuu islaamku yimid aan caqli lahayn iyo nin waayeelnimo caqliga ooga tegay markuu islaamku yimid iyo nin intuusa islaamku iman ninba dhintay fatra ku dhintay iyo nin dhagala afartaa qoloba way qiyaamadii imanayaan xujayna la imanayaan oo waxay leeyihiin kii dhagoolka wuxuu leey ilaahayow islaamku wuxuu yimid anoo waxba maqlaynin kii waalaana anoo waxba garanaynin buu islaamku yimid kii kalena wuxuu leey waayeelka anoo waxba garanaynin kii kale fatradaana anoo xaggaada wax rasuula iyo wax diinoo iga soo gaadhay malaayuu leh nabiga calayhi salaatu wasalaam arrintaas ishkaalka ama culimmadu aad ooga doodeen wuxuu ku soo khulaaseeyey ilaahay baa u dirahaya maaragtay rasuul baa loo diri ama qof ama malag baa loo diri almuhim ama asagaaba la hadliba marka naar baa loo soo saari riwaayaadka kale oo qaarkood waxay sheegayaan maaragtay naar luqun dheer oo naaraa la soo saari galaa la leeyahay marka naartan gala ilaahay baa ballan ka qaadayo muwaafiq wuxuu uga qaadayaa awaamirteeda inaad adeecisaan yuu ballan ooga qaadayaa amar waxaa lagu siinayaa naartan gala la leeyahay nabigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam ninka amarkaa qaatoo naartaa gala soof maarta waxay noqonaysaa kaanat bardan wa salaaman kaanat calayhi bardan wa salaama qabow iyo nabadgeliyay noqonaysaa kii diidana naartii baa lagu jiidahayaoo toos baa loo gelinayaa macnaheedu ay tahay dadka halkaasaa lagu kala xukumayaa halkaasaa lagu xukumhayaayo qaybtii ilaahay adeecdoo naartii gashayna oo amarkii ilaahay qaadatayna naartaa ay galeen qabow iyo nabadgelyo u noqonoo jannadii gelhayaan way badbaadahayaan kuwa diidana naartaa toos loo gelinaya ahlu naar bay noqonhayaan sida xadiidka ku cad waana sida raajix oo aqwaasha culimo markii la soo ururiyo sidaasaa raajixa xadiidka as'ilo badan baa ka dhalanaysa iyo aad maarta su'aalo fara badan dood badan iyo wax badan waa masale macruufa weeyaan oo cinda alculamaa aad bay macruufata aad bayna ooga hadlaan fadhigeennan kuma soo koobi kara laakiin su'aalaha ugu muhiimsana ka dhalanaya waxaa weeye labada daaroodee jira ama daarul aakhira iyo daarudunya waxyaabay ku kala duwan yihiin waxaa ka mid ay dhahaan adduunku waa daarul camal ee daarul jaza ma aha adduunka camal baa lagu sameeyaa ee abaalmaris ma leh aakhirana wixii aad adduunka ku soo shaqaysay baa lagu abaalmarinhayaayoo camal ma leh sidaasay labada daarood ee culimmadu dhahaan hadday mar saa tahay oo adduunku yahay daarul camal aakhirana daarul jaza ay tahay limaadaa dadkan loo imtixaamahayaa maxaa yeelay daarul jaza weeyaan imtixaanba maba daaru takliifba maba haba ama dhinaca kale haddaan u rogno adduunyadu waa daaru takliif waajibaad baa laysa saaraya oo lagaa rabaa aakhira laakiin daaru takliif ma ahay dhahan see la yeelayaa culimmadu waxay dhaheen raggooda muxaqiqiinta ah adduunyada iyo aakhiraba ilaa aad jannada qofku uu ka galo ama uu naar galo oo labada maaragtay naartii ama jannadii mid uun loo xukumo intaa u dhaxaysa daaru maaragtay takliiftu kama dhaxayso
haba kala duwanaada takaaliiftu kama dhacayso adduunka waxa laga reebay waajibaad iyo awaamir lagu amrayo iyo waxyaabo laga reebay iyo hawsha inaad la timaad aakhirana hawla iyo takliifa soconayo laga bilaabo bad'an min qabriga laga bilaabo lana qabriga wuxuu nabigu noo sheegay awwalu manazil aakhira inuu yahay aakhirada guriga ugu horeeyay inuu yahay halka waxa ka bilaabanaysa takliifa ka bilaabo takliif ka duwan mid aakhira mid adduunka ka duwan baa ka bilaabo oo maxay tahay laba malag baa lagu soo diraya labada malagna saddex su'aalood bay ku weydiinayaan waa imtixaan way mar hadii lagu imtixaamayo takliifad ku jirta hadda imtixaamka laga qaado ama waad ku dhicaan waad ku baas laba malag baa lagu soo diri waxay ku weydiinayaan as'ilo rabbiga waa ayo diintaadu maxay ahayd nabi maxamed maxaad ka taqaanaa waa takliif way jawaab baa laga rabaa adiga in ka jawaabti idan jawaabti aan waad ku najiixan waad ku dhici daaru takliif way amr takliif baa qof aakhira markii la tago laga sii gudbo su'aalaad baa la is weydiinayaa malaa'ikti baa lagu soo diray oo ku weydiinaysa ilaahay baa su'aalo ku weydiinaya wahakada idan takliiftu ma dhacaysa dhan ilaa qofkii uu jannada ka galo jannada markaad gashi ayay ka hadhaysaa su'aalo iyo takliif oo dhan markaas ka hadhaysaa inta ka horeysa haba kala duwanaada takliifta ma hadhaysaa saadarteed dadkan aakhiro takliif bay ku jiraan waa mukallafiin weey saadarteed baa halka lagu imtixaamaya ama rasuul baa loo diray ama malag baa loo diray ama ilaahay baa toos oo la hadli naarta gala la dhihi cid naarta adeecdo gasha ilaahay subhanahu wa ta'ala bardan wa salaamun booga dhigi oo dad fiican bay noqonayaan dadka diidana waxa weeyaan hada naarta hore looga jiidbaan idan daaru takliif weeyaan marka takliifti ma dhicin idan sidaas ayna culimadu ku xaliyaan idan warkii oo gaaban isku soo uruuri wuxuu nabigu nooga qisooday dadka noocaas oo risaaladii islaamku markuu yimid ka dhagalaa oo dad dhagalo waxba maqlaynin aha ama waalla ama iyagoon islaamku imanin dhinteen ama da'ahaayo da'nimo intii la duqeen waxba aana kala garanaynin iyo asnaafta noocaas iyo amtaashooda qiyaamada takliif baa la saarayaa waxa weeyaan waa amar baa la siinayaa naarta galaa la leeyahay hadday diidaan naarta bay toos u galayaan qofkii naarta amarka lagu siiyayna qabow iyo wanaag bay u noqonaysaa iyo nabadgeliyo awaamirta ilaahay waa dacayo ehl jannadu gali kii diidana hadda adduunkii sida lagu kala ahaan bay kala noqonayaan idan xadiidka wuxuu noo iftiiminayaa masaladaas oo culimadu aad iyo aad ay dood badan ay ku galeen ayuu xadiidka noo kala cadaynayaa idan halka waxaanu ka faa'iideysanay dadka noocaas ee kala duwan anwaacda aakhiro dadka kale si aan loola dhaqmaynin ba ayaga loola dhaqmayaa maadaama adduunka ayna takliif iyo waajibaad iyo waxba ayna ku soo marin aakhira laga qaadaya imtixaankaas ay marayaan idan halkaasna macluumaadka saxda xadiidkaas ayaa sida macluumaadkaas saxiixa ayuu noo soo gudbinaa saasana raajixa ragga dalabatul cilmiga maartay kutubtii ka baaran karaan ibn qayyim baa ragga aad uga hadlay kamida kitaabkiisa dariiqul hijratayn iyo qeyrkiiba way ka hadlaan imaam nawawi baa ka hadlay bayhaqi baa ka hadlay ibn abd albar baa ka hadlay sheekh islaam ibn taymiya ka hadlay maxamed al-amin shanqiidi baa ka hadlay laakiin qaabka uga hadleen baa kala duwan ninba dhinac buu ku dhuftay oo aqwaal fara badan oo kamida xaafid ibn hajar baa kamid rag ka hadlay aad bay u fara badan yihiin laakiin khulaasadii nuxurka halkaas isku imanaysa dadka in qaabka imtixaamka looga qaadayo cid imtixaamka ku guuleysatana ehlu janna ay noqonayaan cid ku dhacdana ehlu naarka sida adduunkaba sida markay dhintaan dadku looga qaadayo qiyaamada ayay noqonayaan ilaahay subhanahu wa ta'ala waxaan weydiisanaynaa bi asmaa'il husna wa sifatil ula inuu naga dhigo inuu xaqna nadsanuun irzaaq xaq raacitaankiisa hada wa sallallahu ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh